kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada ugu door corona waxa kamida maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo dagaal ka dhex qarxay ciidanka xoogga dalka iyo shacab ku dhaqan deegaanka Shabeelo oo fashiliyay miinooyin al-shabaab ku aaseen deegaankaasi ciidanka commandoska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo Jubbada Dhexe ku dilay horjoogihii maktabka warbaahinta al-shabaab fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya daawade wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya inuu sii xoogaystay khilaaf u dhaxeeya maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay horjoogayaal iska dilay kuwa kalena xabsi iska dhigay khilaafka ayaa yimid kadib markii horjoogayaasha kooxdaasi ay isku qabteen hoggaanka sare ee kooxda balse khilaafkooda ayaa haatan isku bedelay inay isku abaabulaan hab qabiila degmada xarar dheere ee gobolka Mudug ayaa dagaalka waxa uu ku dhexmaray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo u kala saftay laba beelood oo kamid ah beelaha gobolka Mudug iyagoo halkaasi isaga dilay ku dhawaad 13 maleeshiyaada magaalada xarar dheere ee gobolka Mudug ayaa haatan waxa ka taagan xiisada u dhaxaysa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo haatan bilaabay inay isku dagaalaan hab qabiil kooxda al-shabaab oo ah koox caadaysatay inay been ka sheegto diinta suuban ee islaamka ayaa haatan abaartay wadadii burburka kooxdan oo waqtigeedii gabaabsiga ah ku jirta ayaa haatan waxa ka dhex qarxay dagaalo ku dhisan hab qabiil dhawaan ayay ahayd markii la helay xog sheegaysa in awoodii kooxda laga wareejiyay horjoogihii kooxda nabadiidka al-shabaab Axmed Diiriye kadib howlgal qorsheysan oo ay ciidanka sida gaarka u tababaran ee commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Dhexe ayay ku khaarijiyeen horjooga ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ujeedka howlgalka oo ahaa dilka horjoogaha maleeshiyaadka al-shabaab u qaabilsan waxay ugu yeeraan maktabka warbaahinta kaasi oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cusmaan Dhagacde ciidanka sida gaarka u tababaran ee commandoska xoogga dalka Danab ayaa ku guuleystay ujeedkii laga lahaa howlgalka waxayna toogasho ku dileen horjooga Dhagacde kaasi oo kamid ah horjoogayaasha muhiimka ay u arkeen argagixisada sida ay ku soo waramayaan saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ciidanka sida gaarka u tababaran ee commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa inta gobolada dalka ka fulinaya howlgallo qorsheysan oo ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha ka tirsan nabadiidka al-shabaab si loo cirib tiro raadiga nafli caariga nabadiidka al-shabaab ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen wadada xiriirisa deegaanka Daynuunay iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wadadan oo ah mid muhiim ah isku socodka ayaa inta badan shacabka dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan nabadiidka oo si dhumaalaysi ah ku yimaada halkan waxaana ciidamada intii howlgalka ay ku jireen wadada kala kulmeen gawaari ay saaran yihiin shacab kuwaasoo ku farxa markay arkaan gawaarida geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka ayaa ah kuwa si wanaagsan ula shaqeeya ciidamada habeen iyo maalin una taagan sugidda ammaanka waxaa howlgalka intuu socday qayb ka ahaa taliyaha guutada 8aad qaybta 6aad gaashaanle Maxamed Nuur Maxamed Madheere taliyaha howlgalinta qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Xasan Aadan Yarow iyo saraakiil kale waxaana howlgalka ciidamada ay wadeen babar socday geejaris iyo wada ballaarin lagu wado wadada xiriirisa deegaanka Daynuunay iyo magaalada Baydhabo oo marar badan nabadiidka ay isku dayeen inay joojiyaan hawsha wadada waxa hase yeeshee arrinkan waxa ka biyo diiday ciidamada geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed markii ciidanka ay gaareen deegaanka Daynuunay waxa ay la kulmeen shacabka ku faraxsan hawsha ciidamadu ay wadaan ayna dalka iyo dadka Soomaaliyeed u hayaan taliyaha guutada 8aad qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Maxamed Nuur Maxamed Madheere oo halkaasi kaga warbixiyay howlgalka ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan iyo sidii loogu talagalay uu dhacay isla markaana uu ahaan doono mid joogto ah inta laga cirib tirayo raadiga nabadiidka al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe sii xoojiyay howlgallada lagu cirib tirayo kooxda waqtigeedu dhammaaday ee nabadiidka arxanlaawayaasha al-shabaab howlgalkan ciidanka commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen deegaano hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelle hoose ayaa yimid kadib markii ay ka warheleen inay halkaasi ku dhumaalaysanayaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab
howlgalkuna ay fuliyeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa waxay ka sameeyeen tuulada Buulaxaaji oo hoos tagta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkuna ahaa mid qorsheysan ay ciidanku waxay baaritaano dheeraad ah ku sameeyeen guud ahaan tuuladaasi Buulaxaaji iyo nawaaxigeeda. kumaandooska Danab oo si feejigan gudaha ugu galay tuulada Buulaxaaji lahaana bartilmaameed gaara ayaa waxay ku guuleysteen ujeedkii howlgalka oo ahaa in ay ka hortagaan dhagarta maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u maleegayaan ummadda Soomaaliyeed waxayna halkaasi ku dileen horjoogayaal qaraxyada gobolka Shabeellaha Hoose ee kooxda nabadiidka Al-Shabaab Ismaaciil Jiis iyo 10 maleeshiyaad oo la joogay sida idaacadda ciidamada qalabka sida Soomaalidu xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalka hogaaminaysay. xilliga howlgalka la fulinayay tuulada Buulaxaaji ayay maleeshiyaadka kooxda nabadiidka arxanlaawayaasha Al-Shabaab ku hawlanayeen dhakridda shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan balse ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka oo ka kaashanaya shacabkooda ayaa ku guuleystay inay afjaraan shirqooladii argagixisada gaar ahaankii ku hawlanaa horjooga Ismaaciil Jiis iyo maleeshiyaadkiisa. ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska Danab ayaa kordhiyay howlgallada qorsheysan ay ku bartilmaameedsanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warka aad kala socoteen channelka Dana Media. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada. sidaas iyo nabadgelyo.